سهل ما هتعليم توصبحي الله كينبا علم باسو سيادة وسامية كونكي سفركي قدام سهل سوفت وير أيان دين سداي بوشي هموغان مرون مانكا مكوهيسي سمي سمريك أما ويبسايد الدنيا أي حقها كيلان موبا هانتاي هيدا 10 موقال تيسر له كفايديسي 10 PDF أو تكنولوجيا كل هانتاي سهل سوفت وير هوستينج ادفرتايزمنت سوفت وير ديفلوبمنت ديزاين ويب وحركو حيدير سمينتا ويبسايدada casriga iyo suurtagelinta barashada casharada kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan hirgelinta barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharo muhiim ku ah sahal software waxa uu ku yaalaa magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool Hamuugaanin sahal software hosting advertisement and development software database and web السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي يعني قوام على خالد محمد محمود يدمان تيم كيو إذن السلام عليكم يسودا سوكالا كورس كني هورين وسعودي اللي هما قعابي سي بروغرامين هذا ما انتو حنو قادم دونا لسا كينا صدحات كاسو كسابسا create variable سيدا ايا لو سميا variable هذا بس هذا سميزو variable مركو قوه الرئيسة بلان كتوسو كتابسيو طبعا 10 كان دولنا inaan sameynaa waa 10 keena saddexaad kaas oo wuxuu ku saabsan yahay sidee ayaa yaani ma garanaysaa loo sameeyaa waxa loo yaqaan variable muxuu yahay variable hadaba dabcan marka ugu horeysa variable waxa la yiri waxa weeye waa is a name given to a storage area waa meel aad ka magacaabanayso baa la yiri kaydinta qaybta maskaxda kombiyuutarkaaga ayaad meel ka magacaabanaysaa kadibna markaas ayaad waxaad ku ridaysaa xog ku ridaysaa variablada la magacaabo maxaa kamid ah waxa kamid ah char int float double float iyo for hadaba bal maanta insha Allah waxaan isleeyahay example kan yar ayaan isleeyahay dabcan wuu ku fahmi karaa qofku variable shaqadiisa variable-ka sida caadiga marka hore waxaynu niri waxa weeye waa meel aad ka samaysanayso kombiyuutarkaaga maskaxdiisa ama qaybtiisa kaydinta kaas oo yaani aad ku shubanayso xog bal hadaba aan wada fiirino marka ugu horeysa aan dhifkeen nimaadno kadibna aan sameeyno wax loo yaqaano waxaan tagi jirnay marka ugu horeysa sideenii caadada ahayd file tab ayaynu tagi jirnay markaas ayaynu waxaynu ka sii tagi jirnay new kadib markii aynu ka sii tagno newna waxaynu sii dalban jirnay amarka lagu magacaabo project hadaba amarka lagu magacaabo project marka aan dalbano waxa inoo soo bixi jirtay daaqada noocan ah ayaa inoo soo bixi jirtay kadib daaqadan marka inoo soo baxdo waxaynu ka sii dalban jirnay daaqadan amarka lagu magacaabo console application kadibna waxaan sii dalban jirnay c kadibna waxaan halka ku qori jirnay magacaan u baahanahay tusaale ahaan kii saddexaad okay kadibna waxaan oran jirnay okay kadib hadaba waxaan oran jirnay sidoo kale save kadibna waxaa inoo soo bixi jirtay daaqada noocan ah ayaa inoo soo bixi jirtay kadib maanta daaqadan already taa markii waan iska taatiri jirnay halka dabadna waxaan ku qori jirnay halka empty main waxaan ku qori jirnay maxay empty main ayaa halka ku qori jirnay kadibna isla markii waxaan furi jirnay circle bracket kadibna circle bracket markaan furno hadana waxaan furi jirnay curly bracket kadib maanta halka waxaan ku qoraynaa printf kadib waxaan furaynaa markiiba circle bracket kadibna double quotation baan furaynaa kadibna waxaan leenahay geli qiimaha aad doonaysid in lagu sameeyo variable kadibna lagu kaydiyo waliba waxaad ku sameeysaa waan leenahay new line waxaan ugu dambaysiinaa marka semicolon kadib waxaan sameeynaa isla variable-ka laftarkiisa waxaan leenahay inti kadibna waxaan leenahay kite kadib markaan halkayd waxaan sameeynaa waxaan ugu dambaysiinaa semicolon kadibna scanf baan leenahay ilaa marka la sameeyo variable-ka wax loo baahan yahay in variable-ka wax lagu shubo Soomaa scanf baan marka leenahay soo gali baan leenahay qof yahow adiga ayuu marka kula hadlayaa kombiyuutarku wuxuu ku leeyahay soo gali waxaad u baahan tahay tusaale ahaan waxaan leenahay waxaad soo galisaa percentage d oo ah decimal waxaad soo galinaysaa ha noqdo xisaabta lagu magacaabo decimal adiga oo la daabacaya markaad waxaan galisid waa in lagu shubaa baan leenahay markaad waxaan galisid waa in lagu shubaa variable-ka lagu magacaabo kite طبعا waxaan gelisid waa in lagu shubo variable-ka lagu magacaabo maxay kite waxaan leenahay variable-ka lagu magacaabo maxay kite kadib inta marka sameeyno waxaan ugu dambaysiinaa shayga la yiraahdo semicolon kadib waxaan leenahay printf kadibna waxaan leenahay dabcan waxaan leenahay qiimahan aad halka gelisay qiimahan
aad halkan gelisay kaasoo dhan baan leenahay kadibna waxaan leenahay percental d ayaan leenahay kadibna waxaan leenahay kaasoo dhan intaas waxaa lagu shubay variable-ka kite. Okay, kadib intaa markaan sameeyno waxaan leenahay waxaad la daabacdaa ayaan leenahay kite ayaad la daabacaysaa waxaan la daabacaynaa aan leenahay kite. kadib intaa markaan sameeyno waxaan ugu dambaysiinaynaa semicolon kadib markaan semicolon ugu dambaysiino waxaan dalbanaynaa compile and run kadibna waxaan oranaynaa save ayaan oranaynaa kadibna tan wuxuu ku leeyahay mid hore oo main ku saf garaysan baa jirtay ma kuugu bedelaa kadib waxaan leenahay yes baan leenahay kadib markaan yes nahno waxaan ku dhufanaynaa dabcan daaqadan ayaa inoo soo bixi doontaa marka ay daaqadan inoo soo baxdo tusaale waxa la leeyahay gali qiimaha tusaale waxaan leenahay waxaad loo kaydisaa qiimo gaadhaya 2000 dabcan sida aragtaanka waxa ka soo baxay qiimahan aad halka gelisay kaasoo dhan maxay 2000 intaas dhan waxaa lagu shubay variable-ka kite. dabcan hadaba waxaan halka ka aragtaa variable-ku waxa uu yahay iyo shaqada uu qabanaya variable-ku wuxuu ku qabanaya wax allaale iyo wixii aad adigu halka soo geliso ayuu ku kaydinayaa intaan xiisatan oo kala ah ku kulmi doono waxaan ku dhaafayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.